ma isweydiisay sababta dadka qaarkood ay nolosha ugu guulaystaan halka qaarka kalena isku meeshii u fadhiyaan? Farqigu ma ahan nasiibka ee waa go'aan qaadasho. Saaka markaad soo kacday waxaad haysatay fursad u doorato inaad ahaato qofkii aad ahayd shalay, ama inaad bilowdo dhisidda qofka aad noqon rabto mustaqbalka dambe. Xasuuso, dhisidda naftaadu waxay ka bilaabataa go'aanka aad qaadato maanta. Qodobka koowaad, jooji cudurdaarka. Ha odhan ma haysto fursad aan ku bilaabo. Haddii aad rabto inaad qorto buug, ha sugin kumbiyuutar qaali ah inaad ku bilowdo. Ku bilow warqad iyo qalin maanta si aad u gaarto hadafka aad hiigsanayso. Nambarka labaad, maamulka wakhtiga. Inaad wakhtigaaga aad maamusho waa kuu muhiim, waayo qofka bini'aadinka ah haddii aan ku xisaabtimin wakhtiga uu haysto maalintii 24 saac, waxba ma noqonayo. Dadka guulaystay ma helaan saacado ka badan inta aad haysato. Waxaan ula jeedaa 24 saac. Markii aad ku lumin lahayd 2 saacadood baraha bulshada sida TikTok, Instagram iyo WhatsApp, u qoonday maalintii 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo aad ku baranaysid xirfad cusub si aad u beddesho noloshaada oo aad u maalgeliso maanta si ay beri wax faa'iido ah aad uga hesho. Nambarka saddexaad, deji yoolal yaryar. Ha isku dayin inaad buurta hal maalin qura aad ku fuusho oo aadna ku soo degto, waayo taasi waxay kaa qaadanaysaa waqti aad u fara badan, waxayna kuu keeni kartaa inaad niyad-jabto. Haddii aad rabto inaad miisaanka dhinto, ha dhihin maanta waxba ma cunaayo. Tusaale, haddii aad rabto inaad miisaanka dhinto, ha dhihin maanta waxba ma cunaayo, ee dheh maanta 15 daqiiqo ayaan lugaynayaa si aan u dhimo miisaan berito. Qodobka afaraad, dooro saaxiibo sax ah oo kugu habboon, waayo Soomaalidu waxay dhahdaa qofka haddaad rabto inaad barato waxaad eegaysaa saaxiibkiisa mise qofka ay isu badan yihiin mar walba. Waxaad tahay celceliska 5 qof ee aad u badan tahay ama aad wada fadhiisataan. Tusaale, haddii ay saaxiibadaada mar walba ka sheekeeyaan dadka kale, ka raadso saaxiibo kale oo ka wanaagsan oo ka sheekeeya ganacsiga iyo horumarka mar walba. Qodobka shanaad, baro xirfad cusub, waayo adduunka hadda wuxuu noqday digital. Mar walba aad barato xirfad cusub waa mar walba ay badan yihiin fursadahaaga. Dunida si degdeg ah ayay isu beddelaysaa. Qofka barashada joojiyana wuu dhacayaa. Tusaale, baro sida loo isticmaalo AI sida ChatGPT, Gemini iyo kuwa kale la midka ah, ama luuqad cusub adigoo isticmaalaya YouTube-ka, waayo haddii aad YouTube-ka ka raadido waxaad u baahan tahay wax walba waad ka helaysaa. Qodobka lixaad, maalgeli maskaxdaada, waayo waxa aad dhegaysato ama waxa aad akhriso waa cuntada maskaxdaada. Tusaale, beddel muusikada aad dhegaysato subax walba. Waxaad ku beddeshaa inaad dhegaysato podcast-yada, ama aad akhriso buugaagta, ama aad dhegaysato fiidiyoyaasha dhiirigelinta leh markaad u socoto shaqadaada ama aad joogto gurigaaga si aad naftaada u dhisto. Nambarka 7, guuldarrada u arag cashar. Ha ka baqin inaad qaldanto, waayo qofka aan qaldamin waa qofka aan isku dayin weligiis inuu sameeyo wax cusub. Tusaale, haddii uu ganacsi kaa fashilmo, ha dhihin waa la iga guulaystay, halkan ayaan ku joojinayaa, ee dheh waxaan bartay 10 qaab ee aan ganacsiga loo maamulin, kuwaas oo ii keenay inaan fashilmo. Qodobka 8, joogtaynta. Inaad wax bilowdo way fududahay, laakiin inaad joogtayso way adag tahay. Go'aanka aad maanta qaadato ma shaqaynaayo haddii aadan ku celinin beri. Tusaale, inaad maalin kasta aad akhriso 10 bog muddo sanad ah waxay ka dhigan tahay inaad dhamaysay 12 ilaa 15 buug sanadkiiba.
taasina waxay kuu tahay horumar iyo dadaal. Qodobka 9aad, daryeelka nafta iyo jirka. Waa muhiim inaad naftaada aad daryeesho, waayo qofka bini'aadinka ah haddii uusan isdaryeelin ma jirto cid daryeelayso. Ma dhisi kartid mustaqbal haddii uu jirkaaga daciif yahay. Tusaale, jirka bini'aadinku wuxuu u baahan yahay inuu helo hurdo ku filan 7 saac ilaa iyo 8 saac. Qofkii helo hurdo ku filan iyo qof aan helin hurdo ku filan isku mid marnaba ma noqon karaan, waayo jirka markuu helo hurdo ku filan ilaa iyo 7 saac ilaa iyo 8 saac wuxuu samaynayaa nashaad iyo firfircooni, taasoo kuu horseedayso wax walbo inaad u qabato sidii loo baahanaa. Aan kuu sheego sheekada nin dhalinyaro ah oo la oran jiray Axmed. Axmed wuxuu ahaa qof caajis badan oo dhibsada shaqada, mar walba eedda dusha ugu tuura qoyskiisa. Maalin buu daawaday muuqaal kan la mid ah, wuxuuna qaatay go'aan hal dhinac ah inuusan cidna eedaynin. Laga bilaabo maanta wuxuu bilaabay inuu soo kaco saacad ka hor waqtigii uu soo kici jiray, wuxuuna bilaabay inuu barto xirfadda kombiyuutarka isagoo isticmaalaya YouTube-ka. 2 sano kadib, Axmed ma uusan noqon qof shaqo kaliya haysto, ee wuxuu noqday qof dadka kale dhiirigeliyo. Maxay ahayd sirta Axmed? Ma ahan inuu helay lacag, waxay ahayd go'aankii uu qaatay si uu u beddelo noloshiisa. Saaxiib, nolosha kuma sugayso maanta, waa warqad cad oo adiga aad gacantaada ku qorayso. Go'aanka aad hadda qaadato ha noqdo mid mustaqbalkaada dambe beddeli doono oo kuu horseedi doono guul. Xasuuso, isbeddelka ma dhaco beri, ee wuxuu bilaabmaa maanta. Haddii aad diyaar u tahay inaad noloshaada maanta aad wax ka beddesho, fadlan iigu reeb qaybta commentiga si aan kaaga soo jawaabo. Sidoo kale subscribe saar muuqaalka si aan kugu dhiirigelino safarkaaga horumarka iyo guusha.